deeq raashina ayaa maanta waxaa la soo gaadhsiiyey mid ka mid a malcaamadaha ay dhigtaan carruurta agoomaha ee ku nool deegaanka Buuhoodle. malcaamadani waxaa magaalada Buuhoodle ka aasaastay gabadh muxsanada oo lagu magacaabo Canab Maxamuud Cali deganna waddanka Mareykanka. waxaana Canab maanta ay deeq raashina ugu deeqday carruurta ku jirta malcaamadaas iyadoo ay aasaastay ee ku taalla magaalada Buuhoodle. deeqdani raashinka ah ayaana waxaa la guddoonsiiyey hooyooyinka dhalay carruurta agoomaha ah ee dhigta malcaamadani. waxaana walaalkaasi si wada jir uga hadlay macalinka isagoo dhiga malcaamadaasi iyo Sheekh Cabdullaahi Jaamac Haaruun Cabdullaahi Maadin oo ka mid ah cilmidiinka gobolka Nacayn una mahad celiyay gabadhani muxsanada ah ee Canab Maxamuud Cali. ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Xuseen Karaamo oo isaguna mas'uul ka ah malcaamadaasi isla markaana halkaasi uga duceeyay gabadhaasi muxsanada ah. ala umuri dunya wa diin wa sallallahu wasallam wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta halkan waxa weeye waxa ka jira deeq la siiyay oo ay siisay gabadhii khayrkan la baxday aqoonta meesha ku ururisay lana baxday ilaahay dartiina ula baxday. ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar khayr qaba ka siiyo oo wanaagsan oo waasic ah ka siiyo iyadii waalidkeedba. gabadhaas ayaa deeqdan la soo gaadhsiisay oo wakiil u yahay Sheekh Xuseen Sheekh Maxamed Aadan uu wakiil u yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ka siiyo ajar wanaagsan oo waasic ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo. deeqdan iyada soo gaadhsiisay si wanaagsan oo waasic ah way u soo gaadhay. maantana halkan ayaanu ugu qaybinayna xaruntoodii. marka intaas ayaan wixii warbixin aan meesha ka siinayaa. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdullaahi oo kamid ah odayaasha xaafadda kamid ah culimaana meesha waxbarashada carruurta waa sidee intii malcaamada furay isbedel maxaa haysan? isbedel fiican baa jira oo aad u wacan. ardaydu badankoodu markii hore ibtidaa'i bay ahayd meesha lagu soo ururiyay oo la isu keenay. markii dambena waxa weeye ibtidaa'iga waa ka baxeen badankoodii. in yar oo kooban unba hooseysa oo xagga jisaska hoose 3 jis hoose ku jirta. inta kale laakiin waxaa ugu sarreeya ardayga 2 suuradood ay uga dhiman yihiin qur-aanka ilaa 4 jis iyo badh meelahaas uga dhiman yihiin. marka insha Allah taala intaas ayaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ba'da tahiyya ilaa waa mahad iska leh. mar labaadna ilaah baa mahad leh. ilaahayna uu kulmiyey bogcadan barakaysan oo aynu saaka joogno madrasad agoomeed oo madrasadaha Buuhoodle kamid ah xaafadda galbeedka. madrasadan oo ay dhigtaan 32 arday kana kala yimi 20 qoys. ardadaas ma sha Allah waxbarashadoodu waa fiican tahay, caafimaadkooda iyo noloshooduna waa fiican tahay. waxaanu maanta halkan u taaganahay inaanu gaarsiino deeq walaalaha muslimiinta kamid yahay soo gaarsiisay oo malcaamadan ay kafaara qaadatay oo furtay. haddana rabta inay mustawahan ka sarreeyo gaarsiiso. iyada ilaahay waxaanu uga baryaynaa miisaanka xasanaadka in ilaahay ugu daro. carruurtana ilaahay waxaanu uga baryaynaa in ilaahay aqoontooda kor u yeelo. dadka gacanta ku hayana ilaahay waxaanu uga baryaynaa inay noqdaan xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yidhi أنا وكافئ اليتيم كهاتين في الجنة. أنا جاي يقفك أقول كفارة قاطع جنة ساس وكلام نكون هاي. مركا حسنات فربضن بالله شيء خيرات فربضن بالله شيء ولا شيء وحساب حسته وحان لنا إلهي كوجوليو ولا لا كله دعوانا يا وحان لنا يصدق ولا شيء مسلمات ده وقصوا قيب قاطع ولا لهين أقومها وعن عد كفارة قاطع 20 soo kafaara qaata. carruurtu madrasad bay u baahan tahay hadda tan ku jiraan waa kiro qoodin bay u baahan yihiin, daryeel kale u baahan yihiin. magaalada ay joogaan waa iska maarta magaalo aan maartay xagga hay'adaha iyo khayrigu ku badnayn. marka waxaan leenahay walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba feedback marka aragtaan qof walba barta joogto inaad iska soo xilqaanto. waxaan halkan uga masuul agoonta iyo cidii kafaara qaatayba Sheekh Xuseen, Sheekh Maxamed, Sheekh Aadan, Xaaji Saxaab baa uga wakiila. isaga baana wixii loogu soo hagaajinayaa nidaama
annagu wixiina soo gaadhaan siinaynaa idinkuna inay wax soo gaadhsiisaan baa la rabaa dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa. السلام على من لا نبي بعده وصلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد تحية كل وحي مارت يعني أخبارها وحي نسيي علماء ديجا الرئيسي وحن كليه عن نطقاه وطابنا ولاش المسلمات صادر تيدقة عقونتا مقعد مركب هو عرب محمد علي قبل وانا مقعد أساسية وقبل مدرسة فرتي معلنك القرآن كمدرسة وحكي جانا مشهر كسيسة إلهي سبحانه وتعالى وحمارت يعني أنا إلهي درتي هين هي عمل كذا آخره إنه هو نكسنا هذا يكدوني ميسو مركب هو دعانا إنه إلهي سبحانه وتعالى وحى سمارته يلبح لي وحنا قبل أن إلهي إنه مارت من ميسان كذا حسنات كذا وكرديو ومارت يعني قد كذا آخرنا قد شنا إله وجيله آمين. أدون كان إلهي سبحانه وتعالى قف بركيسان وعمل كذا يمارت يعني أمر كذا عبادة إلهي وبركينا نقطه والد باكو حريرة عدا إلهي سبحانه وتعالى والد كان إن إلهي سبحانه وتعالى هدي وجري ودنا قد كيس قد شنا الله قد أنت ونولي هنا إلهي عمري عافية وركسن السيو أنت سواتاس هذا وربحين يردن كسيو ولا لا يلدق لن يرى هذا جواد سوري بتي waxay lacagahan $1 bay ahayd $1 waxay amartay ama sheegtay in loo siiyo raashin wuxuu u gooyo markii aanu alaabtii gacanteeda soo gashay markii aanu qiyaasnay qof walba inta hortaala ayay goysay qof kasta waxay maartay ay u goysay shub bariisa shub daqiiqa caagad saliida kartoon yaro timira bogaska timirta kartoon timira marka ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas baad maartay u gudoomaysaan gabadha walaasheena ee muslimada ee khayrka u doonaysa ka gudooma idinkuna waana qofka madrasadeenan hadda gacanta ku haysa ee abaabushay ee furtay aan cidina ilaahay hadda ku helin weey marka iyadana ducaa idinka mudan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad u soo ducaysaan maanta markay ubadka yaryar maartay yani ay waxbarashada ka kafaara qaadatay haddana dheeraad hadday hesho ay diyaar u la tahay marka idinkana waxa la idinka rabaa mas'uuliyadda koowaad horta carruurta idinka saaran tahay carruurtan waxa la doonayaa sida walaashaas ugu tabcayso idinna inaad ugu tacabtaan qofka bismillah alhamdulillah rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي بام هذا سبحانه وتعالى بعد تحية الله لمعادنا ينسوى قارسية قبلها ولا ليها هنا وإسلامك قبلها سوى الله عنب أيها وحن مهدو إنو علينا ما دابا وإيماشا أقوانتا يدو كفالة قادي إلهينا أحسي أجري حسنات أو بدلو الرمهنا وطياري عرورتا أقوانتا عرورهana waxaa laga sugayaa inay noqdaan arday soo baxda oo aan tacab khasaar dadka islaamka